Hey guys, soo dhawaada mar kale video cusub. Waa videogeenii aan hore u wadnay ninka loo yaqaano Lionel Messi oo tababaro noogu ahay. Hore noogu ogeeb waxa waaye minaha episode-ka hore waxaan imaanay horyaalka La Liga imaanay anigoona ku soo biirnay kooxda loo yaqaano Atletico de Madrid. Hadda marka waxaan dheeli doonaa kulankii ugu horreeyay ee loo yaqaano Madrid Derby. mideeda kale option walba waxaa u bannaan Lionel Messi haddii Barcelona uu noogu imaado wax loo yaqaano offer uu noogu imaado inaan toos u aadi doono. Mafahanti midaas dad badan hadda shaki kaga jiro oo isdhahayeen haddii Real Madrid Barcelona haddii kaga imaato offer muxuu sameey doonaa. Offer haddii Barcelona iga imaado aadi doonaa. Sababtoo Atletico de Madrid iyo kooxda Barcelona wax cilaaqad fiican ka dhaxeeyo baleeyro badan ay kala gateen sida Luis Suarez oo kale, Antoine Griezmann oo kale. mafahanti intaasay kala gateen. Marka Real Madrid oo kale iskuma hameyna cadow iskuma Messi marka xagga uu aadi karaa. waxaan rajeynaa in uu yani dalab uu ka helo meeshaas inkastoo hadda FIFA dalabkeeda adag tahay qaaradda Yurub markaa joogtid in kooxaha waaweyn oo kala dalab ka heshid aad iyo aad u adag tahay. waa jeclaalaha inaad dalab ka helno laakiin waa nagu adkaan doontaa. Sida kale markii aan fiirino hadda Atletico Madrid waxay dheelaysaa Champions League dheelaysaa, waxay kaloo dheelaysaa koobka loo yaqaano Copa Spain dheelaysaa. koobkan hadda aan dheelayno waa koob aan maxaa la dhahaa u bixi doona Real Madrid quarter final la joognaa. kulankan waxa waaye in aan badinaa nagal rabaa. mideeda kale tiimka markii aan fiiriyey oo tiimka aan maxaa la dhahaa trainingkoodii iyo qaabkooda aan fiiriyey ninka loo yaqaano Giuliano Simeone waa wiilka uu dhalay ninka la dhaho Diego Simeone. waa nin aad iyo aad u khatar badan waa nin aad iyo aad u khatar badan. tiimka ninka yani lagu micnaha agtiisa garbiisa lagu dhiso doono waa asiga iyo Julian Alvarez waa laba nin oo muhiim ah. si kale markii la fiirinayo Messi waxa la dhihi karaa qaraabo soo bilaabo maadaama labadaas nin Argentinian ay yihiin. Juliano Simeone waa Argentine sidoo kalena Julian Alvarez waa Argentine. markii intaas laga soo tago Real Madrid hadda hal gool ay nagu leedahay waxayna u ogtahay daaficayna inuu aad iyo aad u liito. daaficayna waa iska dhib badan yahay. mideeda kalena position ahaan waxa naga dhiman positionka duwaha in macnaha mid fiican aan u keeno ama player fiican aan u keensano sababtoo player fiican hadda nooma joogo. mideeda kalena weerarka waa ka dhisannahay. weerarka tiimkeena aad iyo aad ugu dhisan yahay. goolka labaad hadda waxaa Real Madrid nagu soo weeraray. goolka labaad Real Madrid naga dhalisay waxaana leeyahay ninka loo yaqaano Vinicius Junior ama Mr. Oyaye. Atletico Madrid marka u baxay ninkan waxa waa iska rafaad badan. kulanka marka hadda anytime xaaladiisa isbedeli kartaa oo in yani jaalayaal iyo roosayaal ay soo baxaan ilaa hadda kulanka intuu socdo wax yani tackle iyo wax dhib markaas nooma imaanin. hal gool waxaa noo soo celiyay ninka loo yaqaano Julian Alvarez waa ninka hadda aan sheegayay ninkan waa halis kubadda. mideeda kalena Disha mar dheelsiya mar qaar Disha dheelsiya waxaa sameeyaa Gabriel Jesus oo hadda bench igu jiro inaan afka hore aan geeyo. kulamadii ay ciyaarta adag tahay sidoo kale Thiago Almada inaan Dish dheelsiyo Julian Alvarez sidoo kale nooba dheelsiyo. hore u sheegnay kulankan anytime xaaladiisa isbedeli kartaa. kulamada 8 markii la gaaray daqiiqadaha waxaa bilaabatay jugta culus iyo rafaad iyo qaraac iyo jaale iyo balaya bilaabatay inbaade. hadda ninkii Vinicius ayaa lagu dhagay waxaa ku dhan ninka hanka loo yaqaano daafaca aan Rodrigo ku dhagay caadi u jiiday macnaha inbaade. mideeda kale waa kana markaan sidoo kale Vinicius dhulku jiifa. aan hore u soo sheegaba kulankan anytime jaalo roozo xitaa kulankan inuu bixi karo waa egta. Madrid waxaa lagu yaqaanaa kulan kubad qurxoon maaha waa kulan iska rafaad badan. Arbeloa iyo Messi waa isdagaal rabaan ciyaarta intaas ku soo dhamaatay oo Real Madrid waxay noogu badisay 2-1 sidaasna waxaa ugu harnay koobka hadda aan dheelayno. ma aqaano Super Copa Spain inuu yahay koobka inuu yahay labadaba midkood ma sheegi karo laakiin waxaa hubaa in aan saas ugu soo harnay. taari kale markii wareysi Messi la siinayo ama wareysi laga qaadayo waxaa la weydiiyay tiimka maxaa rabtaa inaad ku soo kordhisid. wuxuu dhahay tiimka waxaa u baahanahay in aan keeno world class right back ama right back fiican inaan keeno sidoo kalena hal qaddax oo kale inaan keeno sidoo kale waan iska rabi lahayn. inkastoo hadda lagu jiro January lagu jiro still Atletico Madrid waxay haystaa lacag ku dhawaad 100 milyan haystaa laakiin ma rabto inay hadda qasaariso. ilaa maalinta ugu dambeyso suuqa waa sugaysaa sababtoo waxay laasan tahay player ku haboon oo markaas la sii karo ayaa la asanta. markana waa kana ninkii ahaa duwaheena ayaa kubadda loo dhiibay laakiin kubaddaas waa uu qasaariyay.
sidoo kale Villarreal kulamadu waxay ka mid tahay kooxaha ugu adag ee ka mid tahay ciyaartan waxaa kusoo bilaabay ninkii loo yaqaano Gabriel Jesus. Gabriel Jesus sababtoo wuu joogay waxaana kulankan dheelahay Gabriel Jesus in afka hore geeyo ninkii ahaana sidoo kale Julian Alvarez na garab saaro Thiago Almada aan soo dheelsi dish aan soo dheelsi markii kubadda saas u dheelayo kubad fiican u dheelaa mideeda kale Messi kubadda oo hadda Atletico Madrid uu barayo waa kubad ku dhisan waxa loo yaqaano position mafaante ayadana maadaama Simeone uu joogo jir aad iyo aad ugu adagtahay waqti badan ay ku qaadanaysaa in dib ku soo laabtaan ama positionka kubaddaas ay la qabsadaan sababtoo ay kubad waxay la qabsadaan orod kubad waxay la qabsadaan dagaal waxay kaloo la qabsadeen kubad aan waxa la dhahaa kubad fiican ahayn mideeda kale Villarreal gool waxay naga dhalisay inaba aan caadi ahayn qurux badan ninkii ahaa daafac ninkii noo ahaa waxa waaye dhulka lagu jeeday wallahi Oblakna sidoo kale qalad uu sameeyay kubadda meesha isku turmaa meel kale laga rabay goolkii labaad hadda waxa waaye Villarreal ay noo labeeyeen daaficina markii aan dhahay daaficina xogaa uu jilcan yahay odayaala joogo Hancock waa oday ninkii kale joogana waa oday hal daafic oo adag hal duwo oo mid fiican oo orod badan inta sida isku helno tiimkeena waxa naga halaabaya ma lahan waxaa noo soo barajiyay ninkii loo yaqaano Gabriel Jesus ninkan bilawga amaanta ku soo bilaabo kulankan oo koobka maanan ku khasaarin sababtoo wuxuu ii keenay in 2 gool oo uu dhaliyo mafahanti Alvarez na garabka Adelcina asna sidoo kale kuma khasaarin oo garabkaas aad iyo aad ugu fiican yahay Alvarez garabkaas aad iyo aad ugu fiican yahay ninkii Jesus ahaa wuxuu khasaariyay kulankiisa ama goolkiisa hat-trick uu khasaariyay kulankan hadii kulankan hat-trick uu dhalin lahaa kulamada soo socon horyaalka inta ka dhiman oo dhan asala Lilsila sidoo kale Alvarez na kubad asi iyo goosh ayuu khasaariyay labadaas ayuu khasaariyay teamka marka waxay toos u aadna marka penalty toos u aadnay sababtoo koobka waxa waaye waa nagwa macnaha ma fahanti penalty toos loo aaday Villarreal way dhaliyeen markaana waxa kubadda loo dhiibay Almadana sidoo kale waa laga qabtay teamkan waxa u maleysaa rigoorada xitaa inaysan experience ku ahayn oo qabiir aysan ku ahayn markaana waa kana Villarreal kan sidoo kale waa dhaliyeen Oblak laakiin kubadda uu raacaya laakiin ma qabanayo Alvarez markaana midigtu soo dhigi laakiin waa laga qabtay kubaddaas markan waxa soo tuuranayo ninkii loo yaqaano Idris Gana Gueye oo Villarreal u dheelayo asna sidoo kale wuu dhaliyay markan hadii laga qabto waa ciyaarteena wuu isku dhamaatay waa Gabriel Jesus ninkii 2 gool dhaliyo waa Gabriel Jesus kubad qurux badan dhaxda ka dhiga banaanka let's go Jesus sasa ku oga haye gooshan la ii qabo bis midkan la qabo tan haduu qabto waxa kubadda way socon kartaa laakiin wuxuu qabtaa bismillah wuxuu arki kara xitaa ma hal isbuuc gudihiisa waxaa nagala soo reebay 2 koob dheelayna hadda waxaan Janis waysana koobka Champions League iyo sidoo kale koobka horyaalka labadaas bis ma ahan wax kale oo aan waysana Champions League hadda kulamada soo socda hadii aan dheelno waxa waaye waa aan soo bixi doonaa kulan marka Deportivo Alaves Braga la galnay Champions League sidoo kale Qarabagna 2-1 ugu badinay kooxdana sidoo kale waxa ugu badinay 3 kulankeena ugu horeeyay Champions League hadda dheelayna oo kulankan waxa u bixinaa kooxda loo yaqaano Sporting Braga kulankan ande Slavia Praha kulankan marka waxa rabnaa in aan guul ku bilaabana rabnaa ma fahanto kulankan kulan dheedeel ma ahan waa inaan guul ku bilaabana guulan u baahanahay kubad qurux badan waxa loo soo dhigay ninka la dhaho Mohamed Salah kubadaas oo kale asna sidoo kale wad ogna Macafiyo oo sideeda ayuu kubadaas wuxuu ugu bedelay gool waana goolkiisa afraad uu u dhaliyo Atletico Madrid ama maxaa la dhahaa uu ka dhalay Champions League asoona dheelay 8 kulan taas waxay ku cadeynaysaa in form fiican uusan ku jirin the Egyptian King sidoo kalena waxaan rajeey doonaa in goolal intaas ka badan uu dhalin doono inuu dhalin doono gooshan gool qurux badan aad waxa waaye goolaya dhankaas kuru filinay hoos ku soo dhigo wadaas way qabiir u yahay ninka ma fahanteen kubadii kale marka daqiiqada ka bacdina kubadda daafacada iska qaldeen uu ka dafay ninka loo yaqaano Mohamed Salah goolkiisa labaad ayuu sidaas ku dhashay maxaan u maleysaa marka in teamka hadii mar goosha u bilaabato in gooshaas ay ku socon doonaan maanta teamkan hadda hal mar hadii goosha ay bilaabaan gooshaas way ku socon doontaa waa Liverpool 2019 dheelayso kulankaas marka saasoo noogu soo dhamaaday kulanka kale nagu xigay marka waxa u bixi doona kooxda loo yaqaan Levante waa kooxaha ugu awoodda yar sida aan aaminsanahay ee ka dheelo La Liga ninka Salah 2 gool u dhaliyay kulankiisa ugu dambeeyay Champions League waxa waa Cameroonkaas ay qabanayaan kulankan waxa macquul ah Egyptian King inuu noo dhaliyo
goolkiisa saddexaad 2 kulan intuu dheelayo waa rajay doonaa laakiin sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu xumahay in aan kubado fiican aan dheelnay sida kubadda Maxamed Saalax oo kale hadda laakiin aan u bedelin gool aan u bedelay waxaan aaminsanahay kubadda aniga markii ciyaar la dheelay haddii kubado badan aad maxaa la dhahaa cuntid inuu gool kugu soo maqata kubadaas ada laga jari doona sidoo kalena markii aad inta fiirno kubada badan aan khasaarin kubada badan aad iyo aad aan khasaarin hadda kubadda Alvarez oo kale kubadda waa cunnay maxaa la ninkan oo kale Alvarez kubad kale loo dhiibay waa uu khasaariyay waxa soo dhan waxa aaminsana in hadda nagu soo maqan yihiin aniga fahanti Talyaani wuxuu dhigay gool hadda cuntid gool ada lagu macnaha adeeg kugu soo socota ama adeeg kugu soo maqan tahay war inta kaambiyada koowaad inta weerar ah ku qaadnay gool hayaa dartiisa ku noosha Levante ma ahane inta weerar ah ku qaadnay tira ma lahan fahanti inta weerar ku qaadnay tira malaha Messi marka hadda kubadiisa waxa waa shaxda inuu wax ka bedelo ku qasban yahay shaxda hadda inuu wax ka bedelo waa ku qasban yahay sababtoo shaxdan positionkii iyo Atletico Madrid isma keenis ama player ku fiican inuu keeno ama teamka shaxda inuu ka bedelo saad u jeedin ama aan dhahaynay gooshii wixii aan cunayna goolaan ugu soo maqan kooxda loo yaqaano Levante gool ay naga dhalisay hadda saa u jeedid Levante gool ay naga dhalisay ciyaartan sidaas ku dhamaatay guuldara marka hadda aan kala soo kulanay garoonka loo yaqaano de Valencia ay ku dheesho kooxda Levante marka ninkan dartiisa Levante u noolad ninkan goolaha dartiisa Levante u noolad hadduu saasi ahaa lahayn mar hore ayaa ka badileen markaas fahamta mar hore ayaa ka badileen marka sidoo kale waxaan rajeynaa in waxa lahaa episode-kan ka hesheen waxaan rabaa marka maadaama kulamada ugu dambeeyay ku jirnay maxaa lahaa January aan joogno lacag waa haysanaa oo almost waxa haystaa 108 milyan haysanaa 104 milyan marka in suuqa player laga soo qaadan karo ay sheegtiin sidoo kale subscribe like iyo comment fiicanna waa idinka dhankiina kan iyo kiisa kirinta geerina waa maalin goodbye